أما بقى أنتوا كشجرة فضانة هن دور أرمات دور غضب أو كسابسن كونفور قلبت أفرتي سنة الله هدافي كونفور قلبت بيلون كنا لنا بيلقي لنا راو لبعتوين بدنا لينك جيسدي مراك الدولة النمذ لبعتوين كلين جيسدي ما بكون بدها حرك أو ما الرأي يسلينك أبي يلنا أو قف على قف كل فضل لسكو هيري داي لسكو لبعتياي لسكو ديلاي تنكلم ما يبغى مشاريع هرمرات أو ديجانات كونفور قلبت كوي أو ديجانات ونها كوجين بيلوين تجير لما الرأي هل مشروع حتى اليوم كسينا يعني لا ترد جريسة أرنتي هذا أنا ما يبغى أرن أمل الرأي بيلتن أمل الرأي أنا أرنتي إدي أمل الرأي دبعتين بدن لينك سوب يو ديجانة دي لا ترد جريسة ديو تنقل ما ده بقى هذا لانه معمول شركة دبوشيسين تكونفر قبل هالدفرو شركة سجن ولا يحكوبها ما يبغى إنه أمل الرأي إنه خصوصي يعني لها نعديانا sababtoo ama baa malaagi guud ee la geelay meel raaya xarunta odayaasha dhaqanka yaa malay dil oo shirqool leenka suubi arintiyada ay meel gudoomiyaha baarlamaanka shirkadu booshisinta wadamay buu ilaa ay hadda may buu wal akhbaar oo ku hayna mala marka saas dartii ama baa ku codsadaan shirkadu booshisinta koonfur galbeed in wasaaradda arrimaha gudaha la ka wareejiyo siyo cadaalad iyo meel raaya booshisinta la shaqeeyo run unagat gudoomiyaha baarlamaanka sheegada madoobe may baa inayahan la safan nankii oo 40 sano una hamooni mal ray dhibaatooyinka ku jeesida koonfur galbeed oo waqti shay dhamaaday Abdi Aziz lafta garan saas dartii ma ba codsadaan shirkadda dib u heshiisiinta koonfur galbeed soo mal ray cadaalad leenka hela dib u heshiisiinta la sheegay oo dhabtay in mal ray aan ku dheedo dawladda federaalka Soomaaliyeed wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta in la ka wareejiyo haddii leenka wareejiyna wal meelaha ku bahi oo beelweynta geelilaya meel ray oo ya qaadadaas ma leh haddana wal unimada ilaahay ma bajarama sababtoo ah iyadoo meel ray dilnin jeysidi malaaqa guud ee beela geelile meel ray sharndi boo shishin ana dareer lilay walaaye wal una qaadadaana ma dal iyo dibad meel buu roogna shirku isuga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed eedan kuma hanahagaano daafuri waana meel ray uu ku mar eliyano diyaaran laakiin shay aadam madoobe isu dalkan dadkan gurade Ibrahim Maalan Aliyow lamada kuntum ilaa maadi markii uu meel raayis wal loo rasaatay la array in baarlamaanka la ka daray libiidi dadkii ku ergoyahay ugaasidii libii oo ku ergay jawaare insaadi international communities ka insaadi shay aadam madoobe wal loo ras mahaanan dalshay la ka duulay dalshay difaacdo dadkii arrayahay Ibrahim Maalan Aliyow in suuqyada shay aad madoow shir u hogaamiyo oo digil marifle meel raay dib u heshiinta leenka suubiyo Ibrahim Maalan Aliyow meel raay ur aridis meel raay lahan qaadado meel raay meeli Allah ku bi arinteeda may baa qaadana ma oo ogolaadano ma shirkad dib u heshiinta koonfur galbeed ku dareer saad u ka dareer oo meel raay saad u ka dareer oo ummadda koonfur galbeed iyo ummadda wadanka roogdo meel raay iskala لكن رالله لو كنا قبل كورونا ما والشرطة لك شيء كورونا ما ونقول بلوين تجيل اللي ما يبودك أنك بدن كونفور قلبت أوديجانا لك تبعته يكوك أنا دت كانوا لسكدري ديجانا ده نوم الرأي تبعتهم بدن لكم بدن جيسي دت كانوا هيرين هم لكم مدو هاي أفرسن حبسك جران دت كي ولا نحمرين إنه الله هذا الديجانا دي دت كانوا كل هذا لا تولني نديد arrin siyaasadeed in la dhagili oo may baahna dib u heshiisiin hoob la qabado dadka hormuud ku noqdo ana koonfur galbeed may buu dadka in ka tir badan deegaanadan degmooyinku uu deegaano kulli hadda in aan ku sheegay dad degaw oo koonfur galbeed ay ku jirta ma leh askarta ka badan uu qabo dadka in ka dhimasho badan oo aradata uu ka badan dadka aan suurto lagu qado uu ka badan uu may baafadaane dib u heshiisiin hoob la dib u heshiisiin uu hormuud ku naga wal uu ka jarnaan meelta ma ka suurto galayaan may baa gabagabayay oo waan maxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo meel raay muddo toddobaad ee hadii meel roogasta oo dalkan deegaanada nabad iyo meel raay horumar iyo ku dhiyaan madaxweyne eedeeda aan mahadsan takin ku mahadnagaana may ba uu beelweynta geelay laakiin sheegaan shirkad dib u heshiisiinta in la ka wareejiyo wasaaradda arrimaha gudaha
iyo federaalka dib u heshiisiinta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.